qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dhagax ee Hargeysa oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku eedeeyay inay musuqmaasuqeen codkii deegaankooda. Haweenkani waxa ay tilmaameen in codkii deegaankooda ay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku soo saareen murashaxiin aan ka soo jeedin gobolka Maroodijeex, waxaana ay haweenkani xisbiga mucaaradka ay wadani ugu goodiyeen inay ka aarsan doonaan waqtiga doorashada la gaadho. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waanu mahadnaqaya marka xigta anagu waxaan nahay beesha Arab ee baaxadale waxa shir jiraadkaygan ku habboon yahay maanta arrinka ka dhacay Soomaaliland dhexdeeda anagoo beesha Arab anagoo beer weyn oo mugle oo miisaan leh oo waxaanu ahayn la wada og yahay in horana oo ahayn xisbiga kulmiye nooga soo baxeen shan xildhibaan oo hore haddana markaan niri maantana bal hadda eega xisbiyada iska wada sharaxa kuwa kale bilkeeda aan niri waxaanu galay oo iska sharaxeen inamo kamida reerkii xisbiyada mucaaradka kulmiye wadani iyo ucud haddii ay iska sharaxeen waan ku guul dareysan waxa ka dhacday musuqmaasuq aad fara badan waxa ka dhacday qalin shubato codkayagii waa laga qalin shubtay waxa shubtay xisbiyada labada xisbi ee mucaaradka ba shubtay waxa lagu soo saaray codkayga kale baaqayagaasi wuxuu yahay madaxweynuhu inuu hoos u eego codkayagii markii lagu yiri codkayagii wuxuu ku soo saaray Cabdiraxmaan Ciro laba nin oo beeshiisa degaan iyo district aan lahayn gobolka Hargeysa codkaygu waa proof barbanaan buu yaala waa cadaan hadduu isleeyahay Ciro maanta taasaa ku cuntamaysa waxa uu cuntamaya maaha oo mid lagu ogaaday adduunka dib wala wada jooga anaga waxa nagu dhacday mushkilad koow oo waligeed iyo horteeto dibna aan loo arki doonin horena aan loo arag oo ah in qarashubatan heshay waanu codaynay codkayagii waxa la yeelay waxayagii waxaan ka haynaa aan jirin xisbiyada mucaaradka ragii aan ka sharaxnay xisbiga maxaan ku dhaday la yiraahdo wadani waxaan ka sharaxnay ragaan cid ereenay laba nin oo cid allaaliye cid ereenaysa aan jirin oo beeshoodu si xor iyo xalaal ugu codaysay halku laba kun la ka soo baxay anagoo 6 kun sideena aan waxba ka weynay mushkilad bay noqotay wallahi waa la yaab waana wax loo noqon doona ilbaa xunin ganay iyo nin galadiiba og waxaan u sheegaynaa waxaan ku dhahay gudoomiye Ciro inaan ognay shaleedaan u ciyaar jirnay bari inaan ka jar doono insha Allah bidmillah waqtigu si kula doorashada u leeyay ay anaga noo soo mari doontaa waxaan si mugi miisaan u codsanaynaa maxkamadda sharafta leh komishanka qaranka iyo madaxweynaha inay dacwadeeda maxkamadda ku jirto noo tixgeliyaan ay hoos u eegaan oo codkayaga lagu qanciyo muwaadiniin baanay waan codaynay waxa maanaan karan in la qanciyo xaq baan u leeyahay naloo eego in codkayagaasi anagu waxaan aaminsanay in la shubtay in si fiican loogu eegabaan madaxweynaha qaranka codsanay xisbiyada mucaaradka aad baan u dhalilaynaa waayo waxaan u dhalilaynaa rag ayaga iska sharaxay in cidina la tartamaynin cidina la hirdamaynin ee kaligood laba nin ama nin ku sharaxnaa codkoodii meel alla meel maray ma garanayno codkayagii waxa shubtay labada xisbi mucaarad way ku talagaleen waayo waxaanu noqon lahay burmayalkaanu noqon lahay dadka saraanu noqon lahay meel saraan gaadla waxa ay shubteen ay u qaateen waxa weeyaan cadaadin qabiilnimo oo inagu hayaan xaafadda Axmed Dhagax iyo gobolka Hawd ka soo jeeda waxaanu dareensanahay garansanahay labada xisbi mucaarid inay noo tashadeen talada iyo isku shubka imika isku shubtaan anagu waxaanu haysanaba arbaweynaha hadaan nahay in anaga noo tashadaan cid kale ba u tashan waxaanu aragnay ummadan oo bariga galbeed badagta oo Arab laydaa oo laga waayay beesh maxaa haayeen xisbigii labadii xisbi mucaarid ee ahaa ucud iyo muxuu haayeen wadani oo inta ugu faraha badan maal iyo moodba ay galiyeen oo ay iska dhex waayeen taasi waxay noqotay waxaan ummadda aqligeeda qaban karin dabeetana waxay noqotay inay yiraahdeen Faysal iyo Cabdiraxmaanba ay noqdeen sidii raha
reerkii reer miir qaba u sheegtay markii maalku soo galay ee dad muxuu ahaayeen soo galeen muxuu ahaayeen muxuu ahaa codkii soo galay ee loogu shubay ee intaasoo maxaan ku urdaayeen musharaxiin intaasoo qabiil soo gashay ee ay iskala garan waayeen subaxaasa ka ah hadda iskala garan waayeen oo dabeetana anagana yiraahdeen reerkii reer miir qaba u sheeg anana saakaan leenahay reerkii reer miir qaba u sheeg anaga waxaan wax nagu culus ma aha wax nagu weyna ma aha Axmed Nuur ciise telefishanka bulsho Hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus